maaliyadda uu halkaa gaarsiiyey dadaal iyo wanaag iyo niyad sami ayuu ku gaarsiiyey iyo isagoo ilaahiisa aaminay oo aadna u shaqeeyey runtii annagana wasaaradda waxbarashada si sharaf leh oo aan ugu mahadnaqayo ayuu runtii noola shaqayn jiray oo waxaan ula tagnaba ugu caawin jiray aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan leeyahay oo runtii idiin sheegaya horta waa ammaano waxa la isku dhiibaya waxa weeyaan marka la leeyahay haddii allah waadii rasuul uul al-amri minkum macnaheedu waxa weeyaan ilaahay baa qofkan ma ahayn dadka ka sarreeyo laakiin ilaahay baa kuu dooranaya waxa ilaahay markuu kuu doorto dembi badanina uu kugu socdo way ilaahay qofkan uu idmaday isagaa la xisaabtamaya marka aakhiradaada iyo adduunyadaada haddaanad labadaba ilaashan dee adiga horta cirka roobku waxa weeyaan ammaana laynoo dhiibayaa ammaanadu marka horena ammaano carruur iyo iskuullo iyo ilmo yaroo dhaqdhaqaaqaya ammaanadiisii baanu haynay iminkana waa ilmahaas wixii uu cunayay oo ammaana iyo wixii wax loogu qabanayay weeyaan ammaanada la isku dhiibayaan isku wareejinayna anigiyo wasiirku waxa weeyaan gabadha miskiinada ah ee saaka fadhiisatay afceeda iyo qofka miskiinka ee shaqaalaha suuqa fadhiya cashuurta laga soo ururiyo weeyaan marka wax ciyaara maaha wax si farxad leh iyo degdeg loola kala wareegana maaha oo waxaan idinka baryayo oo ummadda reer Soomaaliyeed ka baryayo inaad iigu ducaysaan inuu ilaahay u asturo oo aan shilina waayo waxa weeye waa ammaano culus waa ammaano aad ogtihiin dadka laga soo ururiyey sida u jecel yihiin sida u dhibaataysan yihiin marka ilaahay waxaan ka baryaynaa oo idinka leedinka baryayaa inaad si niyada iigu ducaysaan cabdicasiisna waxaan ka baryayaa inaan iga fogaano ila shaqeeyo oo runtii tala iyo tusaalooyin badan siiyo waayo waxa weeyaan waxay u baahan tahay wax qarankeedii wuxuu qofna leeyahay maaha waa wax inoo wada dana inay hagaagto runtii oo Soomaaliland ay ku faanayso marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sida sarina waafajiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.